Cusman Famberi oo ah macalinka degmada Galxamur. Cusman Famberi ku soo dhawaad Hanfada Sports. ما سنتهي عبد الغفار وبعد Hanfada ku dhawaad Hanfada Sports. Macallin waxaan nooga warantaa aniga dadweynaha ku dhageysanaya xilkan macalinka degmada Galxamur yaa ku magacaabay marka hore. عبد الغفار ما سنتهي سؤال مهم waxay magacaabay waxay leedahay degmadu madaxa xafiiseed sport dhanka sportska u qaabilsan iyo gudoomiyaha sportiinta leedahay marka madaxa xafiiseedka sportska degmada Galxamur ayaa ay magacaabay xilkaasi sanadkan inuu u leeliyo degmada. waxaad faahfaahin kooban naga siisaa aniga dadweynaha ku dhageysanaya qaabka ciyaartoyda Galxamur mataliya aad u soo xushay anagoo ogsoon Galxamur inta badan inay tahay deegaan ama degmo aan kubadda saas looga xiiseen. waqtiyadii hore oo magaranaysa inta ka yaray hadda maaha ciyaartoyda hadda u ciyaarayso matalisa degmada iyo kuwa kale oo laga keenay deegaanada kale oo iyada ku dhow iyo kuwa kale kaciyaanta ka xaynay isku jiraan groupka cidda la gasheen ma noo sheegi kartaa Abdul Ghafaar aad ma santahay waxaan leeyahay degmooyinka kale ah degmada Wardheer oo ah martigeliyaasha koobkan oo sanadkan lagu qabanayo Wardheer iyo degmada Booq oo ah the champions koobkan ku dhacay iyo degmo kale oo dhaw leeliyo iyo degmada Galxamur afartaas ay isku noqday saddex kale oo degmooyin isku ay noqdeen galabta waxaad la ciyaartay Wardheer runtii way ka badiyeen 2-1 bin igu badiyeen degmada Galxamur inta dhibcood baa uga soo baxdeen groupka miyaa uga soo baxdeen mise B ciyaar kale ayaa dhibmana Abdul Ghafaar oo lehel iyo cibiya Booq ah oo birida doonta insha Allah markaas ayaa la kala xaqiijin doonaa kooxda koow ka soo baxda iyo kooxda laba ka soo baxda laakiin anagu hadda 4 dhibcood ayaan leenahay goolal gaariya hal balaas sana waa leenahay sida naloo xaqiijiyayna waa ka soo gudubnay wareegaasi oo ah markii ugu horeysay taariikhiyan ay ka soo baxda degmada Galxamur group stage-ka rajo intee leeg ayaa leedahay inaad koobkan ku guuleysatid insha Allah wadawii qadar waa meesheeda laakiin hadafkeena iyo go'aankeena intaba sanadkan waxa aan ku soo dardaaranay ku soo balanay inaan degmada Galxamur ka soo dejino koobkan haddii ay noqoto in noo suurtagal weydana insha Allah waxaan rajaynaynaa sida maalmaha ama xilliyada soo socda inaan soo xirgelin doono insha Allah macallin waxaan nooga warantaa awoodda ama xirfadda ay leeyihiin dhanka garsoorka nooga waran runtii waa jiraan rag badan oo tababaro fiican ka muuqday kulli aqoon badan uma lahayn laakiin waa dareemi ka dhaaday sportiga dadka yaqaan daawada oo intaan ku soo dhex jiray maadaama aan ahay rag badan oo qiimo badan leh oo aqoontooda heer sare tahay ku jiraan rag badan oo wax yar u bilaaban yihiin way isku jiraan dhanka taageeraha markii Galxamur ciyaarayso kale taageero intee leeg ayaa ka soo qayb galay koobka ما شاء الله والله تاجر في عنا يا لنا ولو ما أنا عياري ندي دقمي مرتقليس أنا لك تاجر بدنا هساعته لكن تاجر هذا في عنا يا لاين dhanka soo dhaweynta sideen lii soo dhaweey ما شاء الله دقمة كسته أو ماشي إيمان يقول يا لدشيء سيد هالكان دقن كذا يا دقمة كسته ميزانية ده يوح استعمال هاي دقمة ده أي كسوق قاطع oo waxaana kulay degmada Galxamur ayaan soo siisay dhamaanteed inkastoo gurigii iyo meelaha degi lahayn kaliya ay degmaan noo diyaarsan waxa tahay macalinka Galxamur ka waran ciyaartoyda aad wadatid wax ganax kaaga maqan miyuu jiraa wax se ka dhaawacan ma jiraan ciyaartii maanta marka soo gabagabooday kadib labada ciyaaryahan oo dhan waxay soo gaareen way jiraan laakiin wali lama xaqiijin dhaawacyadaas inay ku seegi doonaan ciyaaraha soo aadan walow ay yihiin laba ciyaaryahan oo aad noogu muhiim ah balse haddana wax kale oo ganax nooga maqan ciyaartoy waxa weeye roosooyin ku seegi doono ama jaalayaal ma jiri doonaan ugu dambeyn maxaad baaqa u diraysaa bulshada ku dhageysanaya insha Allah waxaan rajeynayaa inaan noqono kooxdii ugu qiimaha badneed oo matasha degmada Galxamur taariikhiyan walow ama mar hore sameynayba
wax aysan weligood samayn maadaama ay kasoo qayb galeen 3 jeer koobkan markii afraadna hadda ay tahay noqotayna markii ugu horeysay ee u soo gudubtay semifinal waxaan rajaynaynaa inaan meel kasii fiican aan sii higsano oo aan gaarsiino degmada anoo ku kalsoon ciyaaryahanada aan wato iyo maamulka dhinaca taagan oo hadda u taagan siday noo garanaysaa waxaan lahaayeen وهاجاكاسي وحوها معلنك الدقمة الحمر عثمان فامبيري أو ورئيس السينية هنفذ سبورتس إن دنك فرصة ماذا وحى سيها جرلانا إيجا جاي ساعد كي يوسف عرب إن أدبضوا مع سنتها مع الفامبيري وحنكون رجال نادي تيم كاجا بقول أدبنكم سلام يا نصيب عن